بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xarunta xarur casharka caawa wuxuu ku saabsan yahay soomaalida yurub soomaalida waqooyiga maraykankana waa la mid laakiin xoogga waxaan saaranay soomaalida yurub casharada uma bixiyo sida aniga iskuullada iyo kollejka iyo jaamacadaha laygu soo dhigay waayo fikirkaasi waa fikir qadiimiya waa fikir hore waxay ku celceliyaan wixii iyaga loo soo dhigay macallimiintaydi afartan sano ka hor loo soo dhigay 50 sano ka hor loo soo dhigay marka waxaan u baahannahay in meelo kale dadka laga tuso waayo aragnimo nolol maalmeedkooda laga tuso casharka marka taasu ku saabsan yahay casharka badankiisu wax nolol maalmeedka ku saabsan dadku ay fahmi karaan maaha wax qof cadaan inuu meel iska fadhiistay wax iska qoray maaha mala awaal qof kasta wax uu mala awaali karaa soomaalida yurub badankoodu waxay yimaadeen 80ka dhamaadkiisii 90ka horaantiisii ilaa 90ka dhexdiisii waxa ay soo doonteen waxay ahayd nabad iyo dhaqaale dadka qaarna nabad bay soo doonteen dadka qaarna dhaqaale ay soo doonteen waa runta waa inaan sheegno labadiiba ma heleen ta kale ma ka faa'iideen mise waa khasaare saddexdaas su'aalood baan ka jawaabaya ta hore aan ku bilaabay soomaalidii nabadda soo doonatay nabad ma helin idaacadaha laga caayaa ama muuqaalka ah ama maqaalka ah qoraalka iyo kuwa la arko telefishinka u taqaaniin iminkana social media waa adigii ogaa bil ka hor soomaalida minnesota la caayay finland waa joogto sweden waa joogta caydu holland waa joogta caydu norway denmark ingiriiska faransiiska belgiumka jarmalka caydu waa iska joogto nabad may helin markaa waayo waxaa isku buuqa badan keenaa waxa weeye wax kasta waxaad usii maraysaa qofka waddanka u dhashay marka nabaddii may helin taasi talabaadna dhaqaale ma heleen soomaalida badankeeda boqolkiiba 95 walaf bay qaadeen walaf lacag warwar iyo walaac sheekooyinka ugu badan ay ka sheegaystaan waxa weeye lacagtii soo gashay way ka baxday hama haysto bishan intan ay soo gashay maanta intan ay soo gashay halkan ay ku baxday halkan ay ku baxday halkan ay ku baxday waddankiina wax u dira weeye halkan boqol ay waddankii u dirayaan bay ka cabaadaan laakiin ma eegaan waxa lacagta lagaga saarayo alaaba u iibsada Nike-da Adidas ka alaaba guriga la dhiganayo gaariga kaga baxaysa gaari baa kaga baxda waxooda oo dhan gaarigana ma nasiya loo sameeyo gaariga meel kasta ku tagaa waan ku shaqo tagaa ay si soo marka lacagna ma helin kuwa lacagta helay waxay ku heleen lacagta say ku heleen waa inay lacagta 100,000 ama 20,000 ama milyan barkii haysta musuq maasuq iyo diin darray ku heleen kuwaasi tiradayna ma jiraan dadka badankoodu lacag ma helin walaf iyo walaac bay ka qaadeen tay kale ahayd ma may faa'iideen joogitaankii yurwi joogaan mise way khasaareen aan ku bilaabo may faa'iideen may faa'iideen run ahaantii waxa aan ku doodi doonaa dokumentarigayga soo socda haddii la yidhahda khasaaray galeen talabaadda marka xoog khasaaray galeen carruurtoodu qaarkood waa dambiilayaal dowladaha askarta ayay dembi ka galeen ama daroogaha iibiyaan ama wax kala halka sameeyaan hablahooda qaarkood suuqay galeen diintii bay ka tegeen niman bay la seexanayaan aan qabin inamada muxuu ahayey hablay la seexanayaan aanay qabin guurkiioo la raajiyey 60 jir 70 jir 90 jir guriga dhex jiifo oo la leeyahay waxbuu baranaya ama waxbuu shaqaysanayaa guurka maba doonayso anaga guurka yaraan ku guursaday marmarsiya loo sameynayo af soomaaliga ka tegeen carruurtooda af soomaali ma yaqaan maanta waddankii hadday ku noqdaan af soomaali ageeyadoodii awooyaashooda af soomaali kulama hadli karaan waxaan ahay ma garanayaan waddankiina lagama doonayo inkastoo waddankii ku dhasheen ama ku koreen ingiriiski ma doonayo holantiiskina ma doonayo finishkina ma doonayaan jarmalkiina ma doonayo danishkiina ma doonayo swedishkiina ma doonayo norwegiankina ma doonayaan belgiumkiina ma doonayo
ودadkii afka ay yaqaaniin ayaan doonayay marka waa khasaareen intaasaan kusoo koobaya maanta documentary-gan ku faahfaahinaya waxyaalaha ay ku khasaareen soomaalida Yurub joogta waxyaalaha ugu weyn waxaa ku jirta diintooda waxaa kaloo aan ku arkay soomaalida Yurub joogta dafiraadda waxaa la yidhaahdo yacni been iyo xaqdarro iyo dulmi iyo dembi iyo xan ayaa lagu sii adkaysanaya waa lagu dafiraya adoo wax cad arka ayaa lagu dafiraya marka muuqaalkaa dheer ama documentary waxaa u taqaaniinay ayaan ku faahfaahinayaa waxyaalaha xabad xabad u taabanaya qodob qodob waxyaalahay soomaalidu ku khasaartay Yurubtii marka xalku waa maxay xalku waa in wadankii la tago wadankii intay qaar tagaan bay 3 sano soo joogay 6 sano soo joogay way soo noqonayaan waa bilaa go-aan baa u baahan yahay kuwaas markii horeba go-aan weyti dad baa jira tiro yar oo wadankii tago oo aan soo noqon oo lacag ka sameeyo oo isku filaada iyagu beera fasha dukaama furta maqaaxiya furta marka dhaqaale wadankii baa laga samayn karaa laakiin waxay u baahan yihiin dadka in kalsooni laga dhiso kuwa soo noqonaya waa bilaa kalsooni isma aaminsana iyagii ilaahay aqoontiisana ma aaminsana oo ilaahay arsaaqadana idin siinay buu subxaanahu wa ta'aala idinku la yimaado xarakada ficilka la yimaada sababta la yimaada marka anigu xalka ugu fiican garay waxa wadankii lagu noqdo khasaare imika lagu jiraa jiilka soo socda uu sii khasaaraya diintooduna khatar bay ku jirta waalidiintana waa la weydiinayaa ma 200 oo lay ku baxdilaan eegtay aan carruurtaydii iyo qoyskaygii u burburiyey